الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد waxaynu kelmad ka oran doonaa taraawiixda waa cibaadada ramadaanta la gudanayo marka dadka qaarkood baa laga yaabaa inay qalad ka fahmaan sidaa daraaddeed qofku cibaadada uu gudanayo cilmigeeda inuu fahmaa waa muhiim tobaneeyo qodob ayaynu wax ka sheegi insha allahu qodobka u horeeya waxa weeye xukmu haadihi alcibaada cibaadadan xukumkeeda ma faral baa mise waa sunne waa laga yaabaa dadka qaarkood inay faral u haystaan laakiin cibaadada taraawiixda salaada la yidhaahdaa waa sunne sunne macnihiisu waxa weeye qofkii la yimaado ajri badan buu helayaa faralkana way u kabaysaa qofkii ka tagana loo cadaabi maayo haddaanu dafirsanayn qodobka labaad waxa weeye mashruuciyatu haadihi alcibaada cibaadadan iyadaa goortii la jideeye u horreysay culimadu waxay leeyihin waxaa daliilu ah in masjidkana lagu tukan karo jamacna lagu tukan karo rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidkiisa saxiix ee bukhaari iyo muslim ku sugan min xadiidi caaisha waxay leedahay nebigu habeen buu ku tukaday masjidka almasjid annabowi fi lmadiina masaajidkiisa madiina markaasaa lagu xidhay oo dadka qaarkood baa soo helay isagoo tukanaya muu iclaaminin isagu laakiin isagoo iska tukanaya ayaa lagu xidhay habeenkii labaadna dadku aad buu u soo batay habeenkii saddexaadna way ka sii bateen dadku masuu u soo bixin nebigu oo gurigiisuu iskaga tukaday markii dambena salaaddii subax buu ka wacyigeliyo wuxuu uhi waxaan u maqnaaday waan idin arkaya ina aada u soo uruurteene in la idinku waajibiye ayaan ka baqday markaan arkay sidaa u danaynaysaan salaada ah marka isagoo dadka u danaynaya ayuu ka maqnaaday nebigu sala allahu calayhi wasalam marka halkaa waxaa laga fahmay in salaadan jamac lagu tukan karo masjidka dhexdiisa qodobka saddexaad waxa weeye salaadan cadadkeeda iyo tirada la tukanayo caaisha ayaa ka sheekaysay arrintaasoo xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukan jiray ramadaan iyo bilaha kaleba 10 ragcadood iyo midh witriga ah iyo labada ragcadood ee subaxa ka horeeya markaa 10 buu tukanayaa midhkii witriguu raacinayaa kadibna markuu waagu baryana labadii subaxa ka horeeyey ayuu tukanayaa waxaa intaasii raacsaneyd cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdo wakhtigu ummadda madaxda u ahaa ee madaxweynaha muslimiinta u ahaa ayuu jamicii ururiyey si gaargaara loogu tukan jiray masaajidka nebiga dhexdiisa markaa wuu ururiyeyoo asxaabigii ubay ibnu kacbi la odhanayey ayuu yihi ubayow tuki dadka oo jamacaa ku tuki markaas jamicii ayaa lagu tukaday salaadiina wuxuu ka dhigay 20 iyo saddexdii witriga 23 marka labada dariiqo markay culimadu ka hadlayaan waxaa u soo horeeya oo ka hadlayay ragga in badan baa ka hadlay laakiin ibnu taymiya raximahullah marka arrintaa ka hadlaya waxa uu leeyahay qofku hadduu labada siyoodba ku tukado wax dhiba ma laha qofka maleeya cadadka taraawiixda aan ilaahnay cadadka salaada habeenkii la tukanayo bisha ramadaan inay tiro mucayana tahay oo aan la dhaafin karin faqad akhdaa uu gafay buu leeyahy marka qofku cadadka waana siyaadin karaa waana nuqsaamin karaa intuu karo laba kadibna midh witriyahu lagu soo khatimo jumhuurulculamaana sidaasay u badan yihiin salaada nebigu wuxuu tukaday 11 sida caaisha ay sheegtay laakiin in laga badin karaana wax ma aha bidca bay leeyihin sida asxaabtuba ay isku waafaqeen ridwaanullaahi calayhim qodobka afraad salaada iyada ah macal imaam in lagu tukado oo imaamka lala tukadaa fadli bay leedahay macnaheedu waxa weeye sidaa nebigu guriga ugu tukaday guriga waad ku tukan kartaa weliba wakhtigan
cabsida laga qabo ururka dadka iyo xanuunkan guriga uu iskaga tukan karaa qofku haddii imaamka lala tukado oo wax dhibihi aanay jirinna marka iyadana fadli dheeraad uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla xadiidkii saxiixa tirmidi warinaya wuxuu sheegayaa qofka salaada la tukada habeenkii imaamka ee la dhammaysta wuxuu ka dhigan yahay qof habeenkii oo dhan cibaado u taagnaayoo kale ayaa ilaahay u qorayaa marka fadligaasay leedahay hadduu imaamka la tukado kayfiyada salaadan loo tukanayaa waxa weeyaan laba-labana waa loo tukan karaa afar lix ayaa loo tukan karaa oo laysu raacin karaa laakiin midhka witriga ah waa inuu u dambeeyo taasi baa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam faraysaynu ka arki doono qodobka lixaad waxa weeye maxaa la akhriyayaa salaadan dhexdeeda qur-aanka nooc gaar ahoo la akhriyayo lagu eegaan karaa miyuu jiraa mise tiro cayiman may ka soo aroorin nebiga calayhi salaatu wasalaam tiro cayiman oo rasuulku akhriyay qur-aanka kariimka ah sidaa daraaddeed culimmadu waxa ay leeyihiin cid walba wixii u sahlanaadun bay akhriyi doonaan markaa selafka qaarkood waxay ku dhammayn jireen sidaasaa ibnu yaziid asxaabiga da-yartaa uu tilmaamayo khatma bay samayn jireen oo soddonkay ku dhammayn jireen ramadaanta habeenkiiba jus qolyaha qaarkood 10 jis bay akhriyi jireen qaarkood habeenkii waxay akhriyi jireen macnaa saddexdii habeen mar bay ku dhammayn jireen qolo iyo awooddeed jamaca had iyo jeer tukanaya inta uu karayuu isla garto wey waxaan se wanaagsanayn faas in loo tukado sida dadka qaarkoodoo aynu aragno qulhuwallaha un ku tukada iyadoo qur-aanka ilaahay badan yahay deg deg sida ay u raadinayaan qulhuwallun bay ku tukanayaan salaadiina aad baa loo eryayaa taasi waxay luminaysaa macnihii salaada iyo khushuucdii qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaahay markuu ammaanaya awliyadiisa waxau ihi waa dadka marka ay salaada tukanayaan khushuucsan marka khushuucdii baa lumaysa way dhacdaa dadka qaarkoodna wadamada qaarkood inay kaba sii fududeeyaan oo maalan washamsi oo kale dee intee oo ragcadoo lagu tukado washamsi waduxaaha waa ragcad ragcadda labaad waalqamari idaa talaaha waa ragcad sidaasun loo wado markaa way macno beelaysaa salaadii kaa inta la isla garto oo si degan loo akhriyo ayaa aada u muhiima qodobka toddobaad waxa weeye witriga in loo dambeysiiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi awtiruu yaa ahla alqur'aan faina allaha witrun yuxibu lwitr dadka qur-aanka ehelka u haw ee qur-aanka lagu soo dejiye loogu talagalay ku camal falaya ku cibaadaysanayo witriga la yimaada oo salaadiina midhka u dambeeya witri ka dhiga ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra xadiidkii saxiixayn ku ah salaada habeenkii tukanaysaan midh u dambeysiiya qodobka sideedaad waxa weeye hadday dhacdaba qofkii inuu witrigii horreysiiyo doonana marka dambe salaadii inuu kordhiyo maxaa u bannaan dalqubnu caliyin xadiidkiisaa saxiixii waxa uu sheegayaa laa witraani fii leyli kaas xadiidkaasaa ka jawaabay laba witri ma jiraan habeenkii mar haddaad witrigii qadintay marka labaadaad doonto laba ragcadood inaad tukato wakhtigaa suxuurta witrigii baanad soo celinayn wakti mucayana miyay leedahay oo salaadani lagu joojinaya haa salaada habeenkii la tukanayo salaatuleylka la idhaahdo waxaa lagu tukanayaa waxaa la tukan karaa ilaa intaan waagu baryin sida uu sheegaya xadiidka muslim ku sugan min xadiidi abi saciid awtiruu qabla subx subaxa ka hor awtiruu qabla an tusbixuu intaan waagu idiin baryin ka hor salaada witriga tukada buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam man adraka subxa walam yuutir falaa witra lahu xadiid kaloo saxiixu isaguna ahaa qofka aan witrigii tukanin ilaa intii waagu dilaacayay witri ma tukan karayo markaa salaada wakhtigeedu bacda shaay buu ka bilaabmay ilaa wuxuu soconayaa intaan waagu dilaacine adaanka dambe aan lagu yeedhanina aan la adaamin salaada iyadaa qalada fahmin kuma ega keliya salaada habeenkii taraawiix waa la yidhaahdaa waxaa tarwiix lagu magacaabay salafku markay afar tukadaanba way yaro nasan jireen
qaarkood qaarna waxay dawaafi jireen kacbada oo salaada iyo dawaafka ayay israacin jireen marka tarwiixa saas rawaxa yurawixu tarwiixan waa masdaru rawaxa tarwiixu waa nafisaada lagu dhex darayay ragcadaha dhexdooda marka afar la tukadaba ayaa ay ugu dareen ayaa magaca loogu tilmaamay laakiin waa salaatuleyl iyo qiyaamuleyl marka kuma eega salaada habeenkii la tukada ramadaan keliya sida dadka qaarkood ay u fahmeen laakiin way soconaysaa inta uu qofka cimrigiisu jiraba waa cibaado habeenkii lagu camiro lagana faa'iidaysto aadna fadligeedu u badan yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan cabdilaahi buu la hadlayey asxaabigaa la yidhaahdo cabdilaahi ayaa uu la hadlayey ibn camr bn caas markaa waxau uhi yaa cabdallah laa takun midla fulani kaana yaquumu bileyli uma taraka calaa macna alxadiid cabdilaahi oo hebel oo kale ha noqonin habeenkiibuu cibaadaysan jiro uu iska daayey marka aad u hadayn sidaad ramadaan u cibaadaysanayso bilaha kalena uwad oo ha joogtayn ila ilaahay la caabudaya ramadaan bilihii kalena waa la caabudayaa marka cibaadadaas sidaas u soconayaa wakhtigeeduna oo ramadaan wuxuuna la doonayaa inaynu u jabsanaano oo aynu cibaadadii la qabsanno oo wakhtigeennii ku buuxino laakiin wakhtiga kalena waa ku camiraynaa waa sii wadaynaa tobaneeyada nuqdadood ayaynu taraawiixda ka odhan lahayn marka qofku hadduu masjidka yimaadana waa ku tukan karaa oo duruuf ka hor joogsanaysa aanay jirin hadduu gurigiisa joogo oo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa imaam ugu noqdu tukiyana salaatuleylkii waa tukan karaa taraawiixdii oo xagga horeana waa tukan karaa intubana way iska bannaan tahay qunuudkana waa la raacinayaa madhabu waa isku khilaafsan yihiin oo qola waxay leeyihiin qaybta dambe ramadaanta weeye qolana waxay leeyihin waa lagu wada caam yeelayaa witrigaasaa qur-aanka ayaa qunuudka lagu akhriyayaa iyadoo loo ducaynayo ehelka asxaabta iyo ummadda islaamkaba aakhiriya adduunkana wixii khayra lagu ducaysanayo wahada ma aquluhu waastaqfiru اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatu